soomaaliyada dadka cadowga uga dhigasaan waataynu shalay lacagta kaambiinka ka soo qaadanin cadow ka dhigasaan soomaaliya cadow dadka aad ku leediin shalay baynu kaambiinka lacagta ka soo qaadanin wallahi Allah wa Cabdiraxmaan abaal milhib adiga iyo tiimka xun ee qadaar albaabka had xirateen saasi albaabku idin ku xidhnaanaya yeyna idin la xumaan diinta iyo ictiraafka la isku xoqay ictiraafku haduu diin galaha naga maqnaado masjid al-aqsa ma taqaana qiimaha aqsa kii hadlaba hadaa tiri ictiraafkii baa laga hor yimid oo ictiraafkii dadka ku xoqdo taasi aday ku dhib oo diintu ku qaban yuhuudan sakin kasta nacdal ku soo degto waxaad iiga jawaabtaa wixii aad ka soo qaaday maxad golaha baarlamaanka warkeeni weyd xisbiga wadani ku socday ku sii qulqulay waxaan leeyahay war ka jooga farta la idinkaga qaniiniyay xisbiga wadani wuxuu juhdi ku bixinayaa dadkii dibadda joogay sidoo soo xareyn lahaa laakiin dadkii gudihiisa joogay dibadday taagan yihiin oo dan iyo muraad kamar dantiisa maalinta gaadheen xisbiga wadani albaabadu xidha aad baan u salaamayaa bulshada reer Soomaaliland ee inta badan kala maqnayn waxaan saaka halkan soo istaagay dawladii aan dhistay ee Dr. Maxamed Cabdullaahi Ciro uma soo istaagin inaan baaqo diro laakiin waxaan soo istaagay inaan dadka waxay yihiin saaka tuso inay dawlad hay bila abaala inaanay wax runtii tacab qasaara horta inuu nagu dhacay inaan dadka bulshadayda reer Soomaaliland ogeyd halkii aan markaasi ku sugnayn xaaladeeda nala socotay kolba uma sharaxayo dib ugu ma noqonaye inaanu tusno inaan dad abaal lahayn horta aanu ku dhimanay oo ku tacab qasaarnay ما لا يشكر الناس لا يشكره النبي محمد بايد عليه الصلاة والسلام من كانوا مدوا مهل علين إلهي نوم مهل علين يعني أبالكم هو وح كويا لو رجعله لكن وحيرنتي نلاقى الشيء ميلاد قداد يعني قريه الراشة حسحاق قريه وروح معه وقوم سنة أي باشا صارت نلاقى شيء ده قريه هناك لو سنة ترى قريه الراشة حساب ما أنا هبرش على بالو دكتي دام الهيد وهي الهايين قريه هرت ugu qadaada ayaanu galnay in anigu inaan baanahay oo waxaan denin maanahay wajigaygi baan u iibiyay Cabdiraxmaan oo halka u dhigay wixii aan ugu dhigay bulshadu way la socotay kulli odayaashii deegaamada ka soo jeeda in badan bay TV-da Cabdiraxmaan baaq uga direen uma soo istaagin saaka halkan Cabdiraxmaan inaan baaq ugu diro ama aan idhaahdo Cabdiraxmaan oo saamigii reerka halkaad ku tirisay uma soo istaagin taasi Cabdiraxmaan way dhamaato way naga dhamaatay in badan baanu kula hadalnay in badan baanu xishoonay bulshada reer Soomaaliland waxay xamso barxaati iga tahay sanad iyo 6 bilood inaanan meelan ka hadlayo aan la arag iyo meelan dawladda ku xagxaganayo waxaan islahaa dawladda shalay dhistay ee shalay tacabka badan gelisay gidaarka u seexatay maantana ha ka hor imanino dawladdaadii ha xagxagan ويان ما أنتنا لقولين ترتيب الدولة دي بالنقطة هيستها شلي أي لستة واحد بالشدة إذا مرخاتي جتها السنة دي اللي بلود بالشدة الرئيس وميلان ميلان كوها الله يو يميلان تاجن هي من ضينا أنا يعرف أنت أنا وين حشوني لكن طبعا حشود كجين هبله هنا جين بريم جديد أنا كنت متها أيها هرت أنا الله شقيني ده تعب قصير كنا ودي عشري كيكو قصلية كي كنا حيبة تقولي جد بقى واحد مالك شطاد بدي دوني بدي لدك تنوع البسارين كما فمي إنا نقول ده رئيسي كما فمي عبد الرحمن يدولدي عند الصي وحي عنو دسي ولا يوجه يا سيستم كانوا دسي هذا بقى عبد الرحمن سيدا الباب كو خيرتي ابا الله واتان هرت كله ابا الله وعبد الرحمن ابا الملحد adiga iyo tiimka xun ee qadaar albaabka had xirateen saasi albaabku idin ku xirnaanaya yeeyna idin la xumaanino dalkan isbedel baanu doonin horumar baanu doonin iswada qabsiba iyo wada tashi ayaynu dawladeena markaan ku imaado eedam xad inoo haysa Cabdiraxmaanow wada tashi ayaynu meel isla dhigan dal isku xiran dal midaysan Cabdiraxmaanow maanta wadanka qabsatay litirka shidaalkii 9,000 shilin buu 13,000 buu maantana maraya hay dalkana warkama haysin dadkana warkama haysin kuwii kula soo halgameen warkama haysin adiga iyo xisbiga wadani in islaamin xisbiga wadani wuxuu juhdi ku bixinayaa dadkii dibadda joogay sidoo soo xareyn lahaa laakiin dadkii gudihiisa joogay dibadday taagan yihiin oo dan iyo muraad kamar dantiisa maalinta gaadheen xisbiga wadani albaabadu xidha haddaba anigu naag habrata haddaan ahay reerkaygii kamaan horimaadi oo habrashay ku jirto sanadii 6 bilood habrashadii uma maqnay xeerin baanu maqnaa xishood baanu maqnaa laakiin xeerin iyo xishood midna dadaan aqoon ayaan arkaya oo isdaba yaacaya oo uqdadaysan oo buka haddaba inaku isla qaana Soomaaliyada dadka cadowga uga dhigasaan waataynu shalay lacagta kaambiinka ka soo qaadanin cadow ka dhigasaan Soomaaliya cadow dadka aad ku leediin shalay baynu kaambiinka lacagta ka soo qaadanin
وروي مسنقانا ومدى بينتي كجوجي qodobka hadaan kaga baxay xamsow hawshii reerka aniga iyo xusbigaana dhex martay iyo baa halgankii aan wada galnay ee ummaduna marxaati ka ahay hadaan soo noqdo ictiraafka wadanka ee dadka lagu xoqayo horta Soomaaliland ictiraaf ma diidin bulshadeeduna ma diidin dadkeeduna ma diidin kamana aan soo horjeedin ictiraafka waa taageersana 35 sano ictiraaf raadmin laakiin waxaanu diidanahay diinta iyo ictiraafka la isku xoqayo ictiraafku haduu diin galaha naga maqnaado مسجد الأقصى ما تقانا قيمها أقصى هذيك يا خضر عبد الرحمن محمد عبد الله ما تقانا أقصى قيمهيسا ومسجد كصدحات إيه بركيسن إيه ما أنت كويا لا أدونك هذا أنا قيمها جراني دينته وهنا أقوم دين ولا حين هيسكت من دينته يا اعترافك كي هذا هذا الاعتراف كذا لقوه ريمي والاعتراف كذا تكون حقوق تتحسابي كله ودينته كقبان يهودنا يا يهودا سكن كستنا على الكوسو دكتو واحد يجي جوابته وحيد كسر قديم حد قلها برنامج وركين وين هلا أنصحيه ما حد وركين طال كان يمسنه والشدة الرئيس وما له حلايه هو هردان إلى هنا حريص واسع عاسي السيراني مركو وده كان هيستي ليه بيوال معناته وده كاتمد آد بيضتكو وقحنا غندي بيوال يجوز هرشيت سدي طال نال ودلك وده تعل أي هاي والله وقف سدي السيراني هنا ليه بيوال وده كان محي قبنا سام محي سترى سعيا السيراني الهردية عبد الرحمن أنت وده كي قاعدي وإسرائيل كتوري وقل مدو كسر صحيح وراقية بين يبين دهو يشعب أيوه هالكا أنت كسر نقضي لي اعترافك اللي جحيي واركم حين اعترافك هو شيء أنت تقبيه كل اعترافك اللي جحيي وحنو ديدنا هي قل كمدو واحد كسر صحيحتي قالها برلمان كدق دقو هركين ها صحيح يعني وسيران هرجي وسيران بربع صومالي قوري يقول وسيران الدكتور محمد عبد الله عرف حلطي بربع صومالي قعد قوري ما ياد كل هذا وحنا نسيحي maxaad soo qabatay maxaa ka keentay dadba yahuud naga leedo halkaas xuutiyiinta rabaan inay kala dagaalamaan oo dalka muslimiinta inay lugta qabtaan adigu maxaad keentay culimadan aad xagxaganaysid maalin kasta xidhxidhto xidhiga waa kaan adeerkii ka diidnay adeerkay Muuse Biixi Cabdi Xildiid waa kaan ka diiday hay isku tiirsanaan bulsho waa kaan adeerkii ka diiday kuri adeer isku xidhnibu dalku u baahan hadaad doonaysa inaad qol madow maalin walba ku saxatay cid ka yeelaysa ma jirto siyaad baraatan laga rido lagu cunay sawaadigoo waan garaynaya wuxuu nin baa yiri dawladii kala wuxuu dawladii caafimaadka qabiga kala lugaynay maxaa ku luraaya laan galay dawladda daciifka ee tacabka badan inaga jiro tacabkii kama tanaasulane halka ina la gashay nuleena intaasan kaga baxaya